بسم الله الرحمن الرحيم walaalkeen maxamed abdiqaadir cusmaan oo idiin soo jeedinaya barnaamijka waxbarashada qaybta tiknoolajiyadda maanta waxaan qaadanaynaa su-aalo jawaabo fasalka shanaad sidaad arkaysaan ama sidaad ujeedaan barnaamijyadan waa barnaamijyo taxane ah ayaan ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan ardayda baraha bulshada wax ka baarta ama had iyo jeer jecel inay markaa wax bartaan ardayda iskuulka joogta projector casharada lagu siiyaa marka wixii video wixii muuqaal ah meesha ayaan ka siiyaa wayna dadaalaan sidaa darteed waxaan jeclaysanay ardayda nagu taxan barnaamijka baraha bulshada sida youtube-ka oo kale inay naga faa'iidaystaan anagana ka faa'iidaysano wixii su-aalo iyo jawaabo ay noo hayaan iyo wixii talo iyo tusaaleyn ah maanta waxaan qaadanaynaa barnaamijka technology fasalka shanaad su-aalihiisii su-aasha koowaad aan ka bilaabo biidnillahi alkariim haduu ilaahay noo yasiro dhammaan waan wada qaadanaynaa insha allahu tacaala su-aasha koowaad waxay oranaysaa waxay leedahay maxay soo martay nolosha bani aadamka maxay soo martay nolosha bani aadamka waa su-aasha koowaad ee barnaamijka technology nabad marka laga hadlayo technology fasalka koowaad su-aasha koowaad barnaamijka su-aasha koowaad technology laga weydiin doono fasalka shanaad waxay dhahaysaa maxay soo martay nolosha bani aadamka jawaabta waxaad leedahay bani aadamku waxa ay noloshiisu soo martay heerar kala duwan noloshiisu waxay soo martay heerar kala duwan bani aadamka waxa ay noloshiisu soo martay heerar kala duwan su-aasha labaad ee lagu weydiin karo waxa waaye muxuu dadaal badan u galay bani aadamka dadaal badan muxuu ku muujiyey muxuu bani aadamka aad ugu dadaalay dadaal badan muxuu ku galay muxuu dadaal badan ku galay bani aadamka jawaabta waxaad leedahay dadaal badan ayuu u galay sidii uu u hindisi lahaa farsamo iyo adeegyo u fududeeya howlihiisa dadaal badan wuxuu u galay farsamo waa xirfad gacanta wax lagu qabto iyo adeegsigeeda sidii loo isticmaali lahaa si noloshiisa maalinlaha ay ugu fududaato waxyaabaha la qabanayo dadaal badan ayuu u galay sidii uu hindisi lahaa farsamo iyo adeegyo uu fududeeyo howlihiisa farsamo waa shaqada gacanta laga qabanayo farsamo yaqaan ay soomaalida qaar dhahaan su-aasha saddexaad ee la weydiinayo waxaa waaye waa maxay ereyga technology waa maxay ereyga technology ereyga technology ayaa nala weydiinayaa halkuu ka imaaday ama ereyga naftirkiisa nala weydiinayaa waa maxay ereyga technology soo ogsantahay technology erey waa sooma waa maxay marka ereyga technology halkee buu ka yimid asal ahaan ereyga technology waxa uu ka kooban yahay laba erey oo Greek ah horta asal ahaan halkuu soo jeedo waa dareemaysaa in Greek yahay Greek waa luqadda Greek sababta Greek cilmiga badanaa technology noqoto waxaa waaye xadaaraday lahaan jireen caalamka ay tegi jireen wax alla wixii aqoon ah ay aruurin jireen maktabadaha ay geen jireen waxbay qori jireen inta kale caalamka badanaa waxba ma qori jirin way yaraayeen wax qoro sidaa darteed marka luqadooday u bedelan jireen marka Greek luqadooda sidaas marka caalamka xagga cilmiyada iyo macnaha erey bixinta loogu adeegsadaa ereyga technology wuxuu ka kooban yahay laba erey oo Greek ah oo isku lamaan macnaha lamaan waxaa waa laba erey oo isku xigo ama laba erey oo isu heshanayso isku lamaan kuwaas oo kala ah techno iyo technology marka techno oo macnaheedu yahay xirfad iyo logy oo macnaheedu yahay barasho sidaad ku aragtiin maadooyinka biology bio means life waa nolol waa logyna waa barasho macnaha barashada nolosha biology waa aragtiin badanaa ereyasha biology logy ku dhamaado way badan yihiin technology hadda arkaysaa biology arkaysaa cytology arkaysaa pathophysiology arkaysaa bacteriology virology arkaysaa waxyaabo badan oo logy ku dhamaado hadda aragtid badanaa waa barasho technology oo macnaheedu yahay xirfad logy oo macnaheedu yahay barasho su-aasha afraad aan u gudbo waa maxay technology waa maxay technology technology aan la weydiinayaa
ereyga technology hadda soo fahnay inuu yahay asal ahaan uu kasoo jeeda Greek oo laba erey ay kala yihiin techno iyo logi. Techno macnaheedu yahay xirfad, logi macnaheedu yahay barasho. Waa maxay technology? Teknoolojiyadu waa adeegsiga aqoonta. Technology uu lagu sheegay waa adeegsiga aqoonta. Aqoonta aad leedahay inaad adeegsan kartid. Waa adeegsiga aqoonta si loogu xalliyo baahiyaha bini'aadamka. Si loo xalliyo, loo maareeyo baahiyaha bini'aadamka. Technology waa adeegsiga aqoonta si loo xalliyo baahiyaha bini'aadamka. Maxaa had iyo jeer teknoolojiyadu isku bedbedeshaa? Waa su'aal shanaad. Had iyo jeer technology way isbedeshaa. Shalay saanay ahayd, maanta technology kale cusub aa imaanaysa. Tii horeeto waa laga tagaya, midaan cusub aa la qaadanaya. Maxaa had iyo jeer teknoolojiyadu isku bedbedeshaa? Teknoolojiyadu waxa ay hadba isla bedbedeshay baahida bini'aadamka. Baahida bini'aadamka keenaysa mar walba inay isbedesho. Dhinaca huga, saddex ayaa jirto. Macnaha hada koowaad waa hunguri. Hunguri wax la cuno oo la quuto ayaa loo yaqaan hunguri. Hada kale waxaa waaye huga. Taa meesha noogu taala hada. Huga waa wax la hugsanayo, la gashanayo. Hugsiino macnaha waxaad huganayso. Dharkaadi hugo. Hugo waa aan garan. Hungurina waa waxaa waaye hadi. Kan kalena waa hoyga, meesha lagu hoydo. Saddexdaas erey ayaa waxa loo yaqaanaa aan qoro meeshaan ku qorayaa waa hunguri. Hunguri waa wax bini'aadamka ay cunaan had iyo jeer. Hunguri wax had iyo jeer bini'aadamka cunaan. Had iyo jeer waxa bini'aadamku cunaan ayaa hunguri loo yaqaanaa. Kan labaad, kan koowaad, hunguri. Hunguri. Kan labaad waxaan leenahay hungurika markuu noqdo. Kan labaad waa waxaa waaye hoy. Hoy waa meesha ku hoyatid. Qof loo yeeray kalimaya. Hoy qof loo yeeray iskala hadeen. Hoy waa meesha markaad ku hoyatid. Qayb saddexaad haddaan qaadano waxay noo noqonaysaa hunguri waan sheegay, hoy waan sheegay. Kan kale waxaa waaye hu. Sida cashirka aad ku arkaysid huga. Hu. Saddexdaas ayaa loo yaqaanaa waxa basic of life waxa English lagu dhaho. Basic of life waxa waxyaabaha asaasiga nolosha. Cashir dhan aad ku qaadan doontaan insha Allah taala sayniska. Saddexdaas ayaa loo yaqaanaa basic of life. Asaaska nolosha. Waayo qofka hunguri hadduu u waayo wuu dhimanayaa. Laakiin labadan kale hadduu waayo wuu dhimanayo. Hunguri ugu muhiimsan. Kan labaad waxaa waaye hoy meel ku hoydo oo kuleelka iyo qabowga iyo macna dhaxanta iyo dabayshu ka galo. Hoy bay u baahan yahay. Kan saddexaadna waa hu. Saddexda markii la helo ayay noqonaysaa marka. Maxaa had iyo jeer teknoolojiyadu isu bedbedeshaa? Teknoolojiyadu waxa ay hadba isla bedbedeshay baahida bini'aadamka ee dhinaca huga, cuntada, isgaarsiinta, caafimaadka, waxbarashada, saadaasha wixii la mid ah. Way badan yihiin. Teknoolojiyadu waxay hadba isla bedbedeshaa baahida bini'aadamka. Baahida bini'aadamka ayaa keenayso had iyo jeer inay isbedesho teknoolojiyada ama aaladda la isticmaalayo. Dhinaca huga. Huga waxa dharka aad xiranayso wixii la mid. Cuntada waa raashinka cunaysid, quudashada. Isgaarsiinta waa macnaha waxaa waaye fariintii, dambaalkii, qoraaladii wixii marka dadka ku wada macnaha labada dhinac ay ku wada xiriiraan sida taleefanka wixii la mid ah internetka. Caafimaadka waa macnaha waa shay u qaalisan. Waxbarashada sidoo kale waa shayada
aad u qaalisan. Su-aasha lixaad haddaan u gudubno oon ku dahnay su-aashaasi. Su-aasha lixaad waxay leedahay muxuu cilmiga sayniska ku salaysan yahay? Haddaba su-aal muhiim ah waa cilmiga sayniska muxuu ku salaysan yahay? Horumarka cilmiga sayniska waxa uu ku salaysan yahay xalinta mushkiladaha ee qofka iyo bulshada kala kulmaan deegaanka ay ku nool yihiin ama ay shaqsi ahaantood. Cilmiga markaa sayniska wuxuu ku dhisan yahay xalinta mushkiladaha, dhibaatooyinka in la xaliyo. Shortage of food, haddii cunto yaraan ay jirtay, massive dhibaatooyin badan haddii jiraan, floods, daadad, wixii la mid ah. Wax alla wixii dhibaato ah in la xaliyo. Inta xanuun imaan, xanuunka waxay dhaliyay in la baaro oo la xaliyo xanuunka daawo loo helo. Waxaas oo dhan waa cilmiga sayniska wuxuu ku salaysan yahay. Horumarka cilmiga sayniska waxa uu ku salaysnaa xalinta mushkiladaha uu qofka iyo bulshada kala kulmaan deegaanka meeshaad ku nooshahay. Dhibaato badan, masas iyo bilaayo iyo macnaha haddii xanuuno badan ay leedahay, marka deegaankaas in la buufiyo, macnaha waxyaabo laga qabto ay u baahan tahay deegaanka ay ku nool yihiin. Muxuu cilmiga sayniska ku salaysan yahay? Horumarka cilmiga sayniska waxa uu ku salaysan yahay xalinta mushkiladaha uu qofka iyo bulshada kala kulmaan deegaanka ay ku nool yihiin. Dad baa qaxaya, sababta u qaxaya ma weydiisay? Waa dhibaato deegaanka ku haysta. Muxuu adeegsaday bilowgii hore bini'aadamka? Haddaba in mushkiladaha iyo dhibaatooyinka xaliyo, muxuu adeegsaday bilowgii hore? Muxuu adeegsaday bilowgii hore bini'aadamka? Bini'aadamku waxa uu adeegsaday bilowgii hore aalado fudud oo uu ku maareeyo noloshiisa, sida beer falashada. Si uu u noolaado oo noloshiisu u jirto, wuxuu markaa kow ka shaqeystay beer falasho, ugaarsiga, sidii markaa hilib u heli lahaa iyo macnaha waxyaabahaas iyo noloshiisa marka ugaarsi uu ku maareeyay. Dhismaha guryaha, in guryo la dhiso marka waxay ka mid tahay macnaha maareyn, ka hortagga khatarta, dhibaatooyin iyo khatar haddii jirtana sidii looga hortagi lahaa. Intaasoo macnaha iyo wixii la mid ah ayuu bini'aadamku markaa bilowgii hore ku dadaalay. Muxuu adeegsaday bilowgii hore bini'aadamka? Bini'aadamku waxa uu adeegsaday bilowgii hore aalado fudud oo uu ku maareeyo noloshiisa, sida beer falashada, ugaarsiga, dhismayaasha guryaha, ka hortagga khatarta iyo wixii la mid ah. Su-aasha sideedaad ee fasalka shanaad. Bini'aadamka muxuu gaadiid ahaan u isticmaali jiray waqtiyadii hore? Bini'aadamka muxuu gaadiid ahaan u isticmaali jiray waqtiyadii hore? Zamanadii la soo dhaafay muxuu isticmaali jiray? Su-aasha jawaabteeda waa tanaa. Waxa uu soo maray waqti uu gaadiid ahaan u isticmaali jiray dameeraha, fardaha, geela iyo wixii la mid ah. Waxa uu soo maray waqti uu gaadiid ahaan u isticmaali jiray dameeraha, fardaha, geela, xoolaha kale wixii la mid ah. Qaar eeyaha raran jiray. Eeyo badan la isku xirayaa soo jiida. Su-aasha sagaalaad. Muxuu soo hindisay markii xigay gaadiid ahaan? Waa garanay markii ugu horreysay waxaa la isticmaalay fardaha iyo dameeraha iyo wixii la mid ah. Marka labaadna muxuu soo hindisay markii xigay gaadiid ahaan muxuu soo hindisay marka intaa laga gudbo. Waxa uu soo hindisay matooro ku shaqeeya uumi waxaa waaye kuleyl, qiiq iyo dhuxul iyo wixii la mid ah. Kuwaas oo la adeegsaday baabuurta iyo tareeno. Baabuur iyo tareeno ayaa loo adeegsaday. Ilaa hadda wadamo qaar la isticmaalaa. Tareenka waxaa lagu shubayaa matoorka agtiisa, dhuxul waa la shidayaa, wuu kulaanayaa, bustoonka wuu wareeganayaa. Marka sidaas ayuu tareenka ku shaqeynayaa. Markasta oo dhuxusha kasii baaba'ayso waa lagu sii darayaa. Baaragtan tareenka afkiisa hore macnaha meesha iskaamintada qiiq badan ka baxay. Su-aasha tobnaad. Wuxuu soo celisay matooro gaariyaasha. Ilaa hadda maanta waxaa la isticmaalaa matooro casri ah shidaal ku shaqeeyo. Qaar hadda solar la marayaa, qaar biyo ku shaqeynaya hadda la soo saaray waddanka China. Waayahay ka gudub su-aasha tobnaad. Maxay noo xalisaa tiknoolajiyadda? Tiknoolajiyadda aan baranayna maxay noo xalisaa? Tiknoolajiyaddu waxa ay noo xalisaa baahiyo badan oo ay adag tahay in aan si fudud u maareyno. Baahiyo badan ayay noo xalisaa in si fudud aan u maareyno. Qof dibadda jiro
ama qof meel fog jiro ayaa loo baahday warqad in loo geeyo. Teknoolajiyadu waxay noo fududeysay inaan taleefanka ayar lasoo baxno meeshii uu jiro dhag dhag meesha jiro dhaladhag oo dhacday wuu aqristay wuu fahmay wuu kusoo jawaabay. Waayo teknoolajiyada ayaa noo xalisay iyo wixii la mid ah. Su-aasha 11aad sheeg hal tusaale oo teknoolajiyad ah oo wax noo xalisay. Gaari gacanku waxa uu noo fududeeyay qaadida xamuulka ama alaab una geyno meel fog. Gaari gacanka baalkan gaariyoolaha la dhaho ama gaari gacanka wuxuu noo fududeeyay inaan ku qaadno alaab. Tusaale ahaan ciyaal yaryar waxay riixi karaan ciyaal 15 jir 12 jir waxa laba loor ay ku qaadi karaan. Laba jirgaan oo biyo saaran gaari gacanka way ku riixayaan. Laakiin qaad markii la kor u qaad lalmi ma qaadi karo. Laakiin marka gaari gacanka la saaro wuu riixi karaa. Taas marka waxay ay u tahay tusaale teknoolajiyada farsamada lagu subiyo. Techno means waxa waa farsamo. Gaari gacanka waa farsamo. Hadii lagu weydiiyo wadankii ugu horeeyay soo saaro gaari gacan. Sheeg wadankii ugu horeeyay oo soo saaray gaari gacan. Waxaa leedahay wadanka China ama Shiinaha ayaa soo saaray. Sababta Shiinaha waa dad shaqo badan macnaha meelo badan ka shaqeeya. Haddana dad markaa tabar yar waayo macnaha neegar ma aha ama dad murqaani ma aha dhisan ma aha. Waa dad iska yar caata iskaga badan yihiin. Dad buuran waa la helayaa dad waaweyn dad murqaani waa la helayaa umad isku mid ma aha laakiin badankooda marka dad iyo waxaa waa dhowdhowaan u badan yihiin caata. Sidaa darteed waxay alifeen marka gaari gacan. Wadankii ugu horeeyay ee soo saaray gaari gacan waa wadanka Shiinaha. macnaha alaab bay qaadayaan dhabarkay ku qaadaan awal horta waxay isticmaali jireen biyaha hataa markay dhaaminayaan waa aragtay laba baaldi iyo ul ay dhexda ku xiranayaan ul bay garabka saaranayaan laba baaldi kalminayaan biyaha sidaas ay kusoo darsadaan hadda taa isticmaalaan marka dambe gaari gacan wax bay subsadeen aalado kale hadda wadamada ugu horeeya ee wax soo saarka baabuurta waxaas ayaga u badan gaari gacanku waxa uu noo fududeeyay qaadida xamuulka ama alaab una geyno meel fog. Tusaalahan hadda gaari gacan ku shaqeysto suuqa markaad tagtid alaabta u baahantay in lagu qaado gaari gacan la u yeelanaysaa lacag baad ku heshiinaysaa xoogaa yar oo mashqaayad ama gunno ama waxyar adiga khidmad ah oo lagugu shaqeynayo halaha alaabta lagu qaadayo meel kaaga qaado meel kale ku keeno marka waa gaari gacan. Beeruhu maxay ka mid yihiin su-aasha kale ee 12aad lagu weydiin doono su-aasha fasalka 5aad ee su-aashiisa 12aad ee lagu weydiinayo waxay noqon kartaa beeruhu maxay ka mid yihiin beeruhu waxay ka mid yihiin tiirarka ay ku taagan tahay nolosha oo dhan. Waxa ay isbedel weyn ku samaysay teknoolajiyada beeraha. Waxa ay isbedel weyn ku samaysay teknoolajiyada beeraha. Teknoolajiyada beeruhu waxa ay isbedel weyn ku samaysay dhulka wax lagu beerayo habka waraabinta beerta ilaalinta cayayaanka daaqidda dariiqada loo falo beerta habka beerta loo falo. Maxay isbedel weyn ku samaysay teknoolajiyada beeraha. Teknoolajiyada beeruhu waxay isbedel weyn ku samaysay dhulka wax lagu beerayo. Dhulka wax lagu beerayo si loo sugo dhulka waa la balaariyay waa la bacrimiyay habka waraabinta waa la abuuray way soo baxday kadibna habka waraabinta habka biyaha loo siiyo tubooyin baa loo taagayaa beerta waxa la marinayaa tubooyinkaas bir baa ka taagan birta shabaq bay leedahay birta waa wareegayaan marka biyaha waxbaa ku xiran birta biyaha fadhiyaan afar dhinac marka sidaas beertii lagu waraabinayaa mararka qaarkood beerta habka waraabinta matooraa loo isticmaalo. Okay habka waraabinta beerta ilaalinta cayayaanka tusaalahan beerta anyax iyo bilaayo iyo kadalaan iyo waxyaabo badan oo noole ayaa jiro marka hadda masiibo oo macnaha rabbaani iska ah oo anyaxa waa iska guurguuraya tusaalahan Soomaaliya dhowr jeer ayuu anyaxa imaaday marka ilaalinta cayayaanka marka beerta nag buu ka dhigayaa dariiqada loo falo beerta waa aragtay zaami iyo cagaf iyo bulldoze iyo waxyaabo badan oo beerta lagu falaa marka qalabka beer falidina haddana sidaas marka hore gacan lagu fali jiray hadda waxyaabo badan lagu falaa marka iyadan teknoolajiyada ay ka mid tahay. Su-aasha 14aad sheeg aaladihii ugu horeeyay ee loo adeegsado beer falashada aaladihii ugu horeeyay oo loo isticmaalo in beer la falo sheeg aaladii loo
sheeg aaladihii ugu horreeyay ee loo adeegsado beer falashada. Yaambadu waxa ay ka mid ahayd aaladihii ugu horreeyay ee loo adeegsan jiray beer falidda. Yaambada waxay ka mid tahay aaladihii ugu horreeyay ee beer falashada. Saa ogsantihiin yaambadu waxa waaye ul ama bir iska dheer tusaale ahaan intaan ku sawiro saas markaa dhahdid waxa waaye yaambadu saas dadka beeraleyda isticmaasha. Halkan gacanka la qabsanaya, halkan waa afkii dhulka ciidda lagu jafaya. Marka sidaas ayaa marka beer falasho dadka beeraha falo ay u isticmaali jireen. Marka waa beer falashada dadka isticmaala. Su-aasha tobnaad aan ku ekeeyo maxay gaartay tiknoolajiyadda beer falidda? Sidii beer falidda tiknoolajiyadda maalin walba usoo kordhaysa, tiknoolajiyadda u badanaysa heer ilaa intay gaartay marka tiknoolajiyadda beer falidda maxay gaartay tiknoolajiyadda beer falidda? Horumarka tiknoolajiyadda beer falidda waxa ay gaartay in loo adeegsado cagaf-cagafyo fududeeya beer falidda, cagaf-cagaf iyo wax la mid ah. Halkan waxaan ku ekeynaynaa fasalkii 5aad ee maadada tiknoolajiga ee su'aalaha iyo jawaabaha ahayd. Ardaygii doonaya marka inuu ka faa'iidaysto waa lacag la'aan. Ka faa'iidayso fadlan adigoo mahadsan. Waxaad noo saartaa YouTube-ka like ama subscribe inta rabtid si dadka saaxiibadaada u arkaan, ama adiga naftarkaada u sheeg oo dheh channel-ka Macallin Shaakir waxaad ka helaysaan maadada tiknoolajiga iyo wax kaloo la mid ah. Marka sidaad u aragtid maadada tiknoolajiga fasalka waxaad tegaysaa browser-ka soo kicinaysaa ama Chrome-ka nin walbo meeshuu ka helayo. Halkaasaad waxaad ku qoraysaa YouTube ayaad ku qoraysaa. YouTube markaad ku qortid wuu wareeganayaa, wuu ku soo kacayaa. Marka meeshan searching-ka ah, halka searching-ka wax laga baaro waxaad ku qoraysaa macallin af Soomaali ayaad ku qoraysaa Macallin Shaakir ayaad ku qoraysaa. Kadibna enter ayaad leedahay ama mobilka browser-ka ku dhufanaysaa. Sidan ayuu kugu soo baxayaa koobintaas. Macallinka meesha ku sawiran waa Macallin Shaakir. waa kana halkaas arkaysaa Macallin Shaakir waad ku dhufanaysaa. Kadibna waxaa arkaysaa in cashiraantii meesha ay tuwan yihiin. Si cashiraanta badankooda oo aragtid haddii qaar ma arkaysa iskugu xigaan oo kale playlist ayaad ku dhufani, haddii kalena halkan ayaad ku dhufanaysaa. Dhammaan wax alla wixii cashir ah oo la duubay halkan ayay soo gelayaan. Waana mahadsantihiin akhyaaray. Ardayda kale ha loo sheego ha ka faa'iidaystaan culumtan. Idinkaan idigu talagalnay wax lacag ma aha. Idinkana waxaa idinka rajaynaynaa duco badan. Wabilaahi tawfiiq. Ilaahay idin yasir imtixaankiina iyo wixii la mid ah.